shalay subaxnimadii annagoo isu diyaariyayna maxay ahayd dadkii inaanu la hadalno baa weerar kale la qabsaday guryihii shacabka dhexdiisa intaba madaafiic baa lala dhacay waxaa dhacday haddii bidkeedu leeyahay oo intaa dheer in xasuuq shacabka ah hadday ciidamo dagaalamaan dee ciidamada dagaalameen wixii ka dhexeeya ciidan bay guusha ku raacdaa waa gartay laakiin dhaqanka islaamka iyo ka soomaalida iyo maxay ahaydtay way ka baxsantay ka aadamaha caalamigaaba in inta dadka shacabka caadiga guriga loogu tago la taargadgareeyo oo la yidhaahdo hebelow soo kaco maxay ahayd xabadda foorka lagaga dhuftay hebelow soo kac xabadda foorka lagaga dhuftay hebelow soo kac sidoo kale haye marka dagaalkii shalay dhacay waxaa wararka na soo gaaray ay sheegayaan in ciidamadaada laga adkaaday oo magaalada Taleex laga saaray maxaa arrintaa ka jira daan duray haddii bidkeeda leeyahay magaalada Taleex kuma sugna anigu imika meel aan ka fogeyn baan joogaa oo kaala hadlayaa hadda kuma jiro aniga iyo ciidamada Puntland baa ku jira waa run qaldaray ku qabsadeen oo ay maxay tahay dawladda ku soo duuleen bay ku qabsadeen oo kula xadsuqeen dadku waa ilaaladii madaxtooyada especially khaaska ahayd iyaga weeyeen kuwa soo duulo qabsaday meesha khasaaraha meesha ka dhacay labada dhinac maxay sheegi karaysaa khasaaraha meesha ka dhacay waxaan ku sheegi karayaa ciidan ahaan annaga khasaaraha iyagu haddii bidkeedu leeyahay markii dawladda magaalada Jubaland loo qabsaday maxay ahayd ilaaladii madaxtooyada ay uga baxday annaga ahayd shacabka la laayay waa 12 baanu imika dhimashadooda maqashiisanahay iyo 15 dhaawac oo shacabka oo dadkii magaalada deganaaya maanta la aasay meedkoodii la aasay Allahu naxariisto mujaahidiinta dadka dardarada lagu soo doontay iyaga waxa soo gaaray kaba warayo iyaga ka waraysan doonta maxamed indasheel eedeymahan aad maamulka Puntland aad u soo jeedinayso in dagaalka ay ku jireen iyo dilal aad sheegayso inay ka dhaceen halkaasi maxaad ugu xaqiijin karaysaa indasheel ama maamulka inta gudaha ku hadlay ha ahaatee ama waxgaradka haddii bidkeedu magaalada degan ha ahaatee waraysta oo waxaad tidhaahdaan iyaga weydiiya haddii bidkeedu ilaa anigu maxay ahayd muxuu ahaa intaas waraydiin soo duubay soo diri maayeen dadka gudaha ku jira haddaadan kaayadan ku qanacsanayn dadka gudaha ku jira ka warayso waa gartay adiga hadda waxaad ii sheegtay in magaalada Taleex banaanka aad ku joogto adiga iyo xogagaada marka maxaa halkaasi aad ka qabanaysaan qorshuhu muxuu yahay qorshuhu wuxuu yahay in dib la soo abaabulo weeyaan dee qorshuhu waa taasoo haddii bidkeedu leeyahay wixii intaa dhaafisantay halkan idaacadda kaaga sheegi maayo laakiin gardarrada loogu soo duulay magaalo madaxda haddii bidkeedu leeyahay khaatamo dee ahaan mayso mid sidaa ku abaada ahaan mayso guulaysan mayso waqtiga doortaba ha qaadatee waxaan se ugu rabaa inaan u sheego haddii bidkeedu leeyahay fariin lagu diro shacabka Puntland fariin u diro haddaad sidaas dawladda raalli kaga tihiinna ahlan wasahlan haddii kalena haddii bidkeedu leeyahay dawladdu waa inay dadkeeda u adeegtaa derisyadana nabad kula noolaataa haddii bidkeedu leeyahay laga keeno